Talaalka Covid-19 ayaa maanta ka bilowday degmada Buloburte gobolka Hiiraan. Talaalka ayayna dadka ka qaadanayaan isbitaalka Wardi iyo Bishaas oo ku yaala degmada. Baada caafimaadka degmada warkacayo madaxa caafimaadka degmada Dr. Zakariya Cabdirashiid Cali ayaa bulshada ugu baaqay inay qaataan dadka talaalka cudurka Covid-19. waxaan aad u soo dhaweynayaa talaalkaas ummadda Buloburte loo keenay aad aan ugu faraxsanahay anigana waa istalaalay cid kastoo mataqaanaa hawshaas cabsi ka qabto waxaan leeyahay talaalku waa muhiim aad loogu baahan yahay wixii taxadir ka hortagana macnaha cid diidaysa ma laha waxaan ku waaninayaa ama ku boorinayaa ummadda degmada Buloburte inay istalaalaan siiba dadka waaweyn oo 60 sano ka weyn ama dadka qaba cudurrada sokorta ama diabetiga ah dadka qaba cudurrada neefta oo asmaatiga ah dadka qaba dhiig karka waxaan kula talinayaa inay talaalkaas qaataan. Maamulka degmada ayaa iyaguna dhankooda bulshada ugu baaqay inay qaataan talaalka maadaama cudurka uu ku sii faafayo dunida. Si toos waxa ugu qaadanay xarunta Wardi ee degmada Buloburte talaalka waxaan kaloo bulshada qaybaheeda kala duwan u sheegaynaa si toos inay ugu qaataan talaalkaasi labada xarun la wadaagaan. Dhaqaatiirta waxay dhahaan isla markaas cudurka hortagiisa iyo daaweyntiisa waxa wanaagsan ka hortagiisa. Marka waxaan u sheegaynaa degmada Buloburte qaybaheeda kala duwan in ay ka hortagaas isticmaalaan talaalkaas ay la qaataan. Yusne Maxamed Ahmed, Hirshabelle TV, Jowhar.